xalay gelinkii dambe waxaa soo weeraray nimanka argagixisada ahaa dadkii deegaanka ciidamo deegaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay waa ay iska celiyeen kadibna saaka ayay xoogna kusoo qaadeen oo dhowr jiha dagaal badan oo muddo dheer socday kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii. dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo. waxa uu salka ku hayaa dagaalka inay nimanka argagixisada ay ku faafaan deegaamo aysan awl haysan oo maamul galmudug ka mid weeyaan dadkii deegaanka oo wada shaqayn wada leenahay xiriir oo ka hortegayay inay horiyahan soo aadaan dhinacyadooda ayaa is abaabulay marka dadkii deegaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha argagixisadu ay wadata diidan salkan wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeersiiyaan insha allah anaguna tillaabaan ka qaadi doonaa haddii la yiraahdo oo hadda waxaanu diyaargarinaynay ciidamada daawiishta harjeyna mar dhow in hawshooda dhan hadda tirkoda loo gabagaboobay qalabeyntoodii iyo diyaarintoodina degdeg ay noo noqotay insha allah dadka sababta mujinataas arki doonin baan rajeynay. xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba. horta isgaarsiintii markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen marka isgaarsiinta hadda ma shaqaynayso laakiin xogaha aan ka helayno dhaawac iyo dhimasha way jirtaa laakiin si rasmi ah oo intaas weeya hadda ma hayno. wararkii ugu dambeeyay qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada shabaab dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan caruurtooda madaarista al-shabaabka arrintaana dadka deegaanku ay ka biyo diideen ma jirtaa arrintaas? arrintaas way jirtaa waxaa jira xarumo ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen ceelbuur iyo ceeldheer iyo jilhareeri xarumahaas ayay inta badan dadka ciyaalka uga qaataan marka waxay samey hataa xoolihiiba dadka inta ka qaadeen bay yidhahdeen waa sakawaad marka dadkuna waxyaabahaas way ka dhigiyeen annaguna xiriir dhowa dadka la leenahay oo la samaynay insha allah waxaan rajeynaana mar dhow inaan gaarno haddii la raal ka dhigo goobtaas. ugu dambeyntii galmudug gacanta ay geysan karto intay la tahay? wallahi anagu hadda ciidan awood cudida waan dhisanay oo waan diyaarsanay dhaqaajin keliya u baahan tahay haddii la raal ka dhigo gacan awood af iyo adinba waan ka geysan karnaa haddii la raal ka dhigo waana ka geysanaynaa dadkaygana waa inaan gar istaagno oon ka dulqaadno eeriyada argagixisada insha allah waan rajeynaya si degdeg inay ku dhacdo.